way badan tahay inaad dareento xaalada adag oo nolosha qaybka waa dareen dadnimo inaad caawimo iyo garab istaag aad u muujisid dadka jilicsan sababtoo ah waxa aad u badan dad baahi weyn u qaba dhiirigelinta garab istaaga iyo caawinaadaada adigoo ka helaya ajar iyo xasanaad eebba ku siiyo caruurtan yaryar waxay ka mid yihiin caruuro aragga naafaka qaarkood arag la'aanta waxaa u dheer cagaha ayay naafo ka yihiin ururka hablaha aragga naafada ka ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano TBG ayaa deeq xaqal ciida gaarsiiyey 10 caruur ah oo aragga naafaka qaarkoodna ay u dheer tahay naafada cagaha gudoomiye ku-xigeenka ururka hablaha aragga naafada ka ee TBG ayaa ugu horeyn ka warbixisay ujeedka loo aas-aasay ururka iyo halka ay ka timi dhaqaalaha ay u qaybiyeen caruurta aragga naafada ka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, golaha wasiirada, xisbiyada qaranka, culumadiinka, ganacsatada, shacbiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan, gaar ahaan dadka aragga naafada ka ah. intaa kadib haddii aan magacayga ku bilaabo anigoo ah Xamdi Cabdi Sogsog ahna gudoomiye ku-xigeenka ururka hablaha aragga naafada ka ah. ururkan waxaa la aasaasay 2019 bishii 9aad 2020keedii. waxa uu shaqaynayaa 8 bilood oo kaliya. ururkan xafiiskiisu waa Hargeysa, sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa gobolada Soomaaliland oo dhan. ururkani waxa uu leeyahay nidaamkii maamul ee kala sareyneed iyo dastuurkii kala hagi lahaa. waxa uu ka diiwaan gashan yahay wasaaradda qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. ururkani waxa uu taagan yahay sidii uu ugu adeegi lahaa haweenka iyo caruurta aragga naafada ka ah. insha Allah aniga iyo tiimkayguba kama daali doono kamana caajisi doono inaanu adeegno haweenka iyo caruurta aragga naafada ka ah. maanta oo ay taariikhdu tahay 2020 bishii 5aad 17keedii bisha Rabadaanna ay tahay 24 waxaan maanta halkan ku gudoonsiin doonaa 10 caruur oo aragga naafada ka ah lacag ay ku ciidaan. lacagtaasi oo ku filan doonta insha Allah xaqaliidkooda. 10kaasi caruur ah aragga ay naafo ka yihiin, waliba 2 ka mid ah waxa u dheer curyaanimo iyo gacmaha ay naafo ka yihiin. hawshan aanu wadno nagamay taageerin dawladdu, nagamanay taageerin hay'adaha caalamku, nagamanay taageerin ururada madaxa bannaan marka laga reebo shakhsiyaad iyagu iskood u soo dhiibtay qaaraanka. waxaan ballan qaadaynaa mar walba inaananu ilaawi doonin dadkaasi. sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddiga ka hortagga caabuqa COVID-19 oo leeyahay hawshiina waa halka ka sii wada. dhammaan bulshada afka Soomaaliga ku hadasha ee maanta ay daawanaysana waxaan leeyahay waa inaad si toos ah u qaadataan awaamirka guddiga ka hortagga COVID-19 haddii noqoto farxalka iyo haddii noqoto waxyaabihii kale lagaga hortagayay, waayo Soomaalidu waxay ku maamaadaa fayadhowrka naftaada iyo faralka eebba ku saaray midna lama fudaydsado. aad iyo aad baan idin salaamayaa. insha Allah waxaan rajeynayaa in muuqaalo kale fara badan aynu isku soo noqon doono. ciidsiintu kuma ekaan doonto Hargeysa oo kaliya, balse waxaan tagi doonaa haddaanu nahay hablaha ururka hablaha aragga naafada ka ah, waxaanu tagi doonaa gobolada Soomaaliland oo dhan annagoo safarkayagu noo bilowmi doono maalinta biriya insha Allah. Ridwaan oo ka mid ah maamulka ururka hablaha aragga naafada ka ayaa deeqdan ciidsiinta u caruurta aragga naafada ka, sidoo kale waalidka caruurta dhalay oo ammaan iyo duco u jeediyay ururka TBG. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. anigoo magacaygu yahay Ridwaan Cabdillaahi Daahir, kana mid ah xubin ka tirsan ururka indhaha naafada ka ah Falangeeralis kana ah WTDG. runaantii maanta madashan aan isugu nimi waxaan ku ciidsiin doonaa 10 caruur oo aragga naafada ka ah oo isna raacaan curyaanimo iyo naafanimo. waxa ugu horeysa Maamo Istaali Cismaan oo haysta 3 caruur aragga naafada ka ah, hal wiil iyo 2 gabdhood. Cabdixakiin Khadar, Nafisa Khadar iyo Isra Khadar. runaantii waxaan ugu horyeeri doonaa in maanta guddoonsiin doonaa lacagta koobaad
hooyo istaahil cismaan oo wadata 3 caruura 3da caruurana aan guddoonsiin doono mid iyo $50 $150 qadar lacagteedu gaadhis aan guddoonsiin doono waxaan u yeedhinaa hooyo istaahil hooyo guddoon qadarka lacag guddoonay qadar lacag oo $150 anigoo ah hooyo maxay istaahil cismaan cabdi haysta 3 caruur oo indhaha aragga naafada ah ururkan wallahi urur maxay haday daneeya ku maxay haday caruurta iyo haweenka dhiirina galiya daacadna ah saamaanta baa arkaysan wajiyada ka muuqata nuguna guddoonsiiyeen lacagaha iidka waayo wax badan ma jirin xamdu waxay noo sheegtay intii yarada koobnaa 2019 hal sano ayuu aasaasan yahay halkaas sano ayna dawladna maxay garab taagnin hay'adna garab taagnin cid kalena garab taagnin ururna ayna garab taagnin oo ay sheegeen maxay haday dad yar oo iska kooban wallahi waa urur maxay haday dawladdu aan leeyahay waa inay madaxweynaha garab qabataa wasiirada maxay haday tijaarta maxay haday culimadiinta cid wal oo qacan ka geysan karta waa inay ka geysataa waayo iyagii ba maxay haday dad naafa ah oo maxay haday indhaha ka naafa ah marka waxaan maxay haday ilaahay ka baryayaa iyaguna inuu ilaahay maxay haday ururkooda taabagaliyo oo meel sare u gaarsiiyo anagana maxay haday kuwii daano maxay haday qacan qabta waalid badan ma meesha kula sugan carro kala duwan oo soo raacaan maxay haday caguhu waxa maslaa cid kaamil ido 3 naafaad haysata laakiin maanta waxaan arkay carro kale oo caguhu u raacaan saa maxay haday carraha kale iyaga laftigooda loo garab qaban lahaa ayaan maxay haday dalka ka rajeynaya iyo ururadaba ilaahayna waxaan ka baryaa ururkeenu ka tasqaado inuu ilaahay ka dhigo xukuumaddan waxaan ku go'aadinayaa inay maxay haday garab galaan sidoo kale halkan waxaan uga yeeri doonaa walaal Axmed Cismaan oo wata 2 caruura oo aragga naafada ah hal wiil iyo hal gabadh qadar lacagana guddoonsiin doono $100 soo dhawoobaan leenahay السلام عليكم halkan waxaan ka bogaadinayaa ururkan habluhu ay ku midoobeen aragga naafada ka ah waxaana leeyahay ilaahay ka abaal mariyo qadarka aqal ciidka caruurta iyagoo kala ay maxay toleeyeen ku iibsiyeen sidoo kale waxaan u yeeri doonaa maamo Faadime Maxamed oo wadata hal wiil oo aragga naafada ah waliba curyaanimo u raacdo Idris hooyadii soo dhawoobaan leenahay السلام يا ururka naafada iyo marka kale ay noogu suganba goobtan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka waxaan leeyahay aan u fiirayaa codsi maxay tahay bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku sugan tahay haday tahay madaxweyne hadii ay tahay maxay ganacsadaa hadii ay tahay maxay tahay guddiga intii waqafda hadii ay tahay maxay tahay wasiirada waxaan leeyahay nalagu soo eego qiiman xariis leh wax kaliya hooyooyinka iyo guryaha caruuraha naafada ee ku jira ee cid warka haynin marka waxaan soo saaray dhalinta aadka u dayar leh dawladna nooma iman hay'adna nooma iman waxaan leeyahay dadka da'da yar leh ee dadkayga lamida ee soo saaray waana ku wahsan yihiin bulshooyinka kalena aan la garab qabato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan sidoo kale aan ka faa'iideysanayaa channel kanaalkan uga yeeri doonaa maamo Khadra Cabdi oo wadata 2 caruura hal wiil iyo hal gabadh oo aragga naafada ah oo guddoonsiin doono qadar lacag $100 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه آيات مهدسنتين الحمد لله إلهي محيدي يلكي تتكين نوصا محيدي العقتها نوصا هوري كأرقنا فضلا يسوي نوصا هوري يسوي يتسي هذه آيات بنو سلامنا إلهي وحخير قبا
oo halkaad ka soo saarteen wax khayr qaba haydin geliyo madaxweynahana waxaan leenahay Muuse Biixi Cabdi horta aad iyo aad baan madaxweynaha ugu salaamanaa waxaan leenahay dadka carruurta indhaha la waxaan ku codsacareer waxweynaa bahood maxay askari yihiin askarta jiid hore waxaan ka codsanaynaa carruurta yaryar inay wax igu qabtaan iyagoo ku dhaataa ma gabi dhamaan carruurta maxay wada indhaha loo dhan ayaan sheegaya aan ka hadlayo aad iyo aad baan idin salaamaya sidoo kale waxaan u yeeri doonaa maama Leyle Jibriil oo wadata hal wiil oo aad iyo aad u daayar macaad yare oo jira 2 sano iyo badh waxaan ku guddoonsiin doonaa halkan $50 maama kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا كقدوني أروحك وأنا كم هالسنين sidoo kale waxaan u yeerayaa maama Kalsoon Yuusuf oo wadata hal wiil oo curyaannimo iyo camoolnimo waa isugu darsantay Yunis waxaan leeyahay soo dhawow runtii waxaan ku soo koobayaa kuna soo gabagabeynayaa qadarkii yarayda lacag ahayd ee aanu maanta kaga farxinaynay caruurteena aragga naafada ka ah runtii intaanu kuma soo koobi doono waanu wadi doonaa ilaa ay ka gaadho heer gobol iyo heer degmo runtii waxaan maanta ku dhiirigelinaynaa caruurtan yaryar ee waalidiintooda ay wataan inay maanta dhiirigeliyaan kana soo saaraan qayrkood maanta heer ay gaadhaan ay maanta la qaybsadaan kuwa aragga qaba oona waxba kaga duwanaanin dhiirigelintuna waa shay aad iyo aad u muhiim ah ayaan leeyahay ka tafqaleen gaar ahaan waxaan u taaganahay maanta inaan caawino bulshadayada aragga naafada ka ah maqalka naafada ka ah lixaadkooda dhamaantood ku ay ahaataba la wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ka qayb qaadashada taakulaynta dadka jilicsan waa mid muujinaysa wanaagga bulsho leedahay